waxaa goordhoweyd lasoo gebagabeeyey doodii labaad ee dhex maraysay madaxweynaha maraykanka barack obama iyo musharaxa xisbiga jamhuuriga mitt romney labadooda ayaa waxay ka jawaabayeen su'aalo uga imaanayay dad maraykana oo aan weli go'aansanin dhinac ay u codayn lahaayeen doodda ayaa waxa ay socotay saacad iyo bar oo ay labaduba kaga jawaabayeen su'aalo la xidhiiray arrimaha gudaha iyo kuwa dibaddaba dooddaasi waxaa saaka nala falanqaynaya xaashi shaafi oo ah madaxa ururka Somali Action Alliance oo ah urur ka shaqeeya diiwaangelinta dadka ee xilliga doorashada lagu jiro xaashi shaafi waxa uu ku sugan yahay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota waxa kale oo isna nala falanqayn doona Cabdikariin Cabdiraxmaan Xaaji Xasan oo ka mid ah maamulka shabakada Wadheer News kana faalooda arrimaha Mareykanka Cabdikariin waxa uu ku sugan yahay magaalada San Diego ee gobolka California sidoo kale waxa iyaguna khadka telefoonka si toos ah ugu jiri doona Ibrahim Aadan Maxamed Faransa oo ka tirsan idaacadda Juba ee magaalada Muqdisho iyo Yuusuf Axmed Abukar Keenan oo isaguna ka tirsan idaacadda Kulmiye ee magaalada Muqdisho labada idaacadood waxa ay bahwadaag leeyihiin idaacaddan VOA waxaan filayaa dhamaantiinba inaad maqlaysaan waa hagaag waxaan ku horeynayaa Cabdikariim Xaaji Xasan seed u arkaysa adiga doodii goordhow la soo gabagabay waad mahadsantahay danduri horta waxaa haystay madaxweynaha maraykanka barack obama cadaadis xoogan oo kaga imanayay taageerayaashiisa dhinaca xisbiga dimuqraadiga oo ku aadanayd in aanu si wacan aanu markaasi u samaynin doodii hore ee dhex martay isaga iyo ninka la tartamaya ee Romney markaasi waxaad moodaa caawa inaad oran karto يعني inuu ka soo baxay kaalintii markaasi ay ka rabeen oo marka la eego oo uu si fiican u difaacay qorshayaasha uu markaasi rabo in uu la hortago dadweynaha Mareykanka marka bisha November la galo doorashadaasi marka waxaad oran kartaa guud ahaan Barack Obama in uu markaasi uu si fiican u jeediyay qorshayaashiisa oo moodo inaanu sidii tii hore dhacday moodisay inuu ekaa qof markaasi meesha aanan rabin inuu joogo amaba aan diyaar u ahayn dood noocaasa uu la galo ninka la tartamaya oo maanta ay taasi aynan suurtagelin waa tahay Cabdikariim waa isu soo noqonaynaa haye shaafi adiga see u aragtay runtii waxay ahayd habeen aad u cajiib badan ninka la yiraahdo madaxweynaha kaba soo qaad tusaale ahaan madaxweyne Obama oo runtii suu walaalkii Cabdikariim u sheegay markii hore ay debatekii hore ama doodii hore oo performancegiisa iyo hab dhaqameedkiisa oo aad u malaysin in aad u daalanayo inuu ahaa ma xanuunsanaa runtii caawa wuxuu ahaa nin muujiyey as the chief of staffki waddankan inuu yahay hogaankii waddanka madaxweynenimo doodiina uu si wanaagsan isaga dhiciyay hadday noqon lahayd haddaan falaqayn yar ku siiyo hadday noqon lahayd shaqo abuuridda oo 31 bilood oo lasoo dhaafay si toos oo shaqooyinka ay usoo tarmayeen ilaa iyo 5 milyan iyo 5.3 milyan oo shaqo ah uu abuuray taasna waxay 5.2 milyan oo shaqooyin uu abuuray ilaa waqti uu qabsaday ilaa hadda isagoo waliba cadeeyay markuu qabsanayay waxaadihii uu ka dhaxlay Bush inay ahayd maalin kasta ama bil kasta waxaa lumayay ilaa bishii kaba soo qaad January ee 2009 800 oo kun oo shaqooyin baa lumayay bishii February sidoo kale uu luntay 800 oo kun marka waddanka meesha ka yimid inuu kor u soo qaado waxyaabo ku faanayahay oo runtii wuxuu kaloo ku faanay oo sheegay ayadana performancegiisa kor u qaaday caawa ballamihii uu qaaday maalinkuu intuusan qabsan ka hor inuu inta badan netgelay waan gartay waa maxamed sandheere oo Ibrahim Daandure la daadihinaya barnaamijka saaki caalamka waxaan u baaqayaa Ibrahim Aadan Maxamed Ibrahim Faransa oo ka tirsan idaacadda Juba FM ee magaalada Muqdisho bahwadaagna la ah idaacadda VOA Ibrahim dadka martida noo ah maxaad su'aal weydiin lahayd waa macsan tahay Sandheere adiga iyo martida iyo Daandureyba horta aad baa u mahadsantihiin doodii labaad ee dhex martay labada musharax ee madaxweynaha iminka ee dalka Mareykanka Barack Obama iyo weliba ninka kale ee Romney lagu magacaabo marka waxaan weydiin lahaa martida arrintan dooda ah oo markaas inta badan dhex marta musharaxiintan u taagan xilka mustaqbalka soo socda ee Mareykanka
siyaasad ahaan dhinaca military ahaan iyo weliba siyaasada dhinaca dibadda ee dawladda maraykanka ee dawladaha caalamka maxay isbedel ah ay markaasi ku keeni kartaa ama ay u keeni kartaa? cabdikariin haddana aan ku horeeyo arrinkaasi horta waxa ay tusaysaa qorshayaasha ay la hor imanayaan markaasi doorashada hadda dhici doonta November labada hadda madaxweynaha Barack Obama iyo ninka la sameeyay Mitt Romney qorshayaasha markaasi ku aadan dhinaca arrimaha dibadda markaasi waxa ay keeni kartaa haddii mesela soo marka loogu celiyo 4 sano oo kale madaxweyne Barack Obama waxa sii socon doonto qorshayaashiisii arrimaha dibadda ee uu hadda waday wax isbedelo buuran oo caynkaas ma arki doono laakiinse haddii uu Mitt Romney uu markaasi uu hogaanka la wareego waxa dhici karta inay markaasi dardar cusub iyo qorshayaal cusub uu keeno oo la oran karo waxa ay u dhow yihiin kuwii madaxweynihii Barack Obama uu ka bedelay xukunka George Bush maadaama ay isku xisbi yihiin dadka hadda maanta la talinaya haddaad eegto maxaa la yidhahdaa Romneyna waxa ay dhammaantood ay kasoo jeedaan xukuumadihii Bush marka waxaad oran kartaa inuu noqon karo qof markaasi xag jir ku ah dhinaca arrimaha dibadda masalan caawa sida uu sheegay oo kale waxa uu sheegay inuunan Barack Obama aanu hawlo badan ka qabanin arrimaha Syria ka dhacaya isla markaana aanu si fiican aan u taageerin dawladda Israa'iil waxay taasi ku tusaysaa in hawlo badan ay iska bedeli doonaan haddii ay xukuumadda isbedesho laakiin haddii Barack Obama uu sii wato wax aynkaasi ma bedelmi doonaan waxaa kale oo Romney iyo Obama arrinkay aad ugu dheeraadeen ka mid ahaa immigrationka ama socdaalka shaafi arrintaas ka waran see u aragtay runtii waxay ahayd waxyaabaha ugu muhiimsan dadka Maraykankana ay aad macnaha ay runtii leeyahay ay inta badan la jirtay arrimaha immigrationka khaasatan inaga ahaan ama ha noqoto saameynta dadka immigrantska ay ku yeelanaysa arrintan waa muuqataa waxay ahayd wax cad labada qof aad bay u kala duwanaayeen value ahaan ninkan la yiraahdo ninka madaxweynaha ah oo runtii aad u taageersan inuu reform cusub oo loo sameeyo policy cusub immigrationkana uu yahay dadkii wadanka uu ku dhisnaa Maraykanka iyo nin aaminsan inuu la yimaado policy maxaan ku dhahaa sida gobolka la Arizona oo state-ka ay qaateen oo asna ahaa mid faquuq ku sameeyo dadka immigrantska ah balse profile garan kara ayagoon dambi garin marka waa laba policy oo aad u kala fog midna uu aaminsan yahay inclusion dadka lagu sameeyo waayo maadaama ay yihiin halbowlihii dhaqaalaha wadankan nina uu aaminsan yahay in la takoro si sax ah wadankan ay ku yimaadaan oo haddii kale ay noqoto kuwa faquuq lagu sameeyo marka policy-gooda aad buu kala duwan yahay waxaan kaloo walaalkay aan ku raacsanahay arrimaha dibadda waa runtii waa laba fakar oo aad u kala duwan fakarka xagga militariga haddaan ku daro oo kale Obama wuxuu aaminsan yahay in gebi ahaanba la dhimo aaladda militariga ee adduunka ka joogta saad ogtihiin Ciraaq waa kuwa ciidamada kasoo saaro uu ku faanay caawana uu yiri maalinkaan qabsaday intaan qabsan waxaan sheegay inaan Ciraaq kasoo saarayo ciidamada waana kasoo saaray wuxuu aaminsan yahay in technology-ga xoogga la saaro in la dhimo ciidamada adduunka ka jooga dhaqaalihii ciidanka adduunka joogana wadanka gudihiisa economigiisa loo isticmaalo marka siyaasadooda dibadda aad bay u kala duwan tahay siyaasadda immigrationkana aad bay u kala fog tahay weliba xagga markay noqoto human value-ga ama qiimeynta biniaadamka waan gartay ansiyo hadda yuusuf axmed abuukar kaynaan oo ka tirsan idaacadda kulmiye magaalada muqdisho oo sidan hore u sheegay bahwadaag la-ah idaacadda v o a kulmiye aan idhaahdee kaynaan maxaad su-aal udu haysaa martidayda caawa waa maqsan tahay sandheer adiga daanduri horta waxaan caawa doodii waan fiirsaday oo Obama waxaad mooday in dooda qaybtii hore ama maalintii hore doodii uu ka qayb galay inuu xoogaa ay aad u luntay aftahanimadii lagu yaqaanay dhinaca Maraykanka marka loo eego wax badan oo marka ay ahayd inuu ku faano ama uu sheegtay inuu ka tagay laakiin doodii caawa waxaan filay inuu kusoo bandhigay marka waxaan rabaa laba su-aal inaan kala weydiiyo labada marti ee Xaashi iyo Cabdikariin Xaashi waan ku hormarayaa su-aasha koowaad waxay dhaqaalaha labadii doodood tii hore iyo tanba waxaa aad looga hadlay dhinaca dhaqaalaha mas-uuliyadeeda iyo kor u qaadisteeda iyo shaqo abuurista iyo waxyaabo lamid ah marka Mitt Romney musharaxa hadda tartamaya xisbiga jamhuuriga isaga siduu u dareensan yahay in dhibaatadii dhaqaalaha ee Maraykanka ka dhacday mas-uulka ahaa xisbigiisa markii uu dalka hogaaminayo madaxweyne Bush uu madaxweynaha ka ahaa mas-uuliyaddii Obama markii xilka uu qabtay inay ahayd waxyaabihii ugu waaweyn oo qabtay inuu badbaadiyay shirkadihii iyo bangiyadii markaa janjarta kasii degaya musallafayay iyo in xoogaa daraasadii ugu dambeysay hadda la sameeyey ay muujinayso
in wax xoogaa shaqooyinka ay soo yara wanaagsanaanayaan. marka su-aashaas waa tan aan u raba xaashi. su-aasha tabarida ammaanka ku saabsan aan cabdikariim weydiinayna waxay tahay markii xisbiga jamhuuriga uu talada dalka maraykanka hayay gaar ahaan madaxweyne bush tallaabooyinka ugu waaweyn oo lagu xasuustay waxay ahayd dhinaca ammaanka, weeraradii afghanistan, ciraaq iyo dalal kale maraykanka uu faragelin ku sameeyey. sidoo kale maraykanka markii shaksiyaad uu bartilmaameedsanayo oo alqaacida ka tirsan ama cadowgiisa u arko wuxuu ku samayn jiray gantaalada kuriska iyo aalado kale waaweyn oo qalab badan maraykanka iyo lacag badan ugu fadhiya ayuu u isticmaali jiray. laakiin hadda obama intii shirka hayay taatika taa ka bedelan iyo dalalka in hab siyaasadeed loo farageliyo iyo shaksiyaadka sida Osama bin Laden dilkiisa in ciidan gaara inta dhulka loo dejiyo aada loo bartilmaameedsado khasaaro badan rayidkii iyo qaraskii maraykanka aanu soo gaarin. marka taa fursad intee leeg ay u siinaysaa madaxweyne obama dadka wax dooranaya ee maraykanka ku sugan? xaashi shafan ku hormaraya. runtii marka hore waa saad u sheegtay walaalkay ninka le madaxweyne obama wuxuu bedelay gebi ahaan siyaasadii militariga ahayd ee dominationka ku ahayd caalamyada kale ee khaasatan weliba image xumo usoo jiidaysa wadanka maraykanka. wuxuu dhimay militarigii ka joogay adduunka, wuxuu ku bedelay meeshii cruiska la tuuri lahaa dhalinyaro ama dad kooban oo special force ah ama diyaaradahan droonka loo yaqaan si uu u yaraado waxyeelada bulsho weynta gebi ahaan gaarta. wuxuuna xooga saaray in badan in technologyga la xoojiyo si loo target gareeyo keliya shaksiyaad aan la target garaysanin bulshadii oo dhan, oo bulshada dhan uusan uga iman naceeb ay u qaadaan dowladda maraykanka iyo gebi ahaanba. midda labaad waxay faa'iido keentay dhimitaanka la dhimay ciidamada adduunka ka jooga intii ay joogi lahaayeen ama la geyn lahaa ciidamo kale ama cruise la tuuri lahaa halka xabano millions dollars ay ugu kacaysay in dhaqaalaha dib loo cesho oo loo soo celiyo wadanka dib loo geliyo si shaqooyin badan lagu abuuro oo baahida ama dadka veteranka ay soo dhaawacmo dagaalada ka yimid dib u habeyn noloshooda loogu sameeyo iyo xooga saaraya siyaasadiisa. meesha ay qolada rabitaanka ah ama madaxweyne Romney gurubkiisa fakar ahaan la aaminsan candidateka musharaxa mid Romney la aaminsan fakar ahaan ay aaminsan yihiin inuu dayacay kaalintii military ee dowladda, waayo ciidamo badan baan u baahanahay bay leeyihiin. waayo Syria maanta waxaa ka socda ma dhici lahayn, Iran hubka ay samaysanayso ma samaysan doonto. madaxweyne Obama wuxuu leeyahay dagaalka mid Romney ma dareensan yahay mas-uuliyadda dhaqaale burburkii maraykanka ku dhacay maadaama uu ka jawaabay isagu tii militariga waxaan anaa jecel marka inaan ka jawaabo ta dhaqaalaha ka jawaab. marka waxa weeyaan dhinaca dhaqaalaha Romney wuxuu had iyo jeer ale uu ku doodaa inuu yahay nin dhaqaaliyahan ah, nin shaqo abuuri jiray, nin intii uu iskuulka iyo waxa dhameeyayba uu ku dhex jiray shaqo abuuri. laakiinse dhinaca kale haddaad eegto xisbiga madaxweyne Obama waxay had iyo jeer ala sheegaan in aanu Romney aanu wax dan ah aanu ka lahayn shaqo abuurista sida kacad recordkiisa ay ahayd inuu markaasi shirkadaha markaasi dhibaatooyinku ay ka jiraan intay u tagaan oo investment ku sameeyaan, markaana ay dadka ay shaqada ka qaadaan isla markaana ay macaash badan u sameeyaan dadkii markaasi lahaa shirkadahaas. taasoo moodo hadda maadaama ay ku fureen dacaayado badan meelaha ay gobolada markaasi loo malaynayo in lagu kala saari karo labada madaxweyne oo ah Florida iyo Ohio oo kale, aad moodo inay xooga saareen. marka arrintii ahayd inuu Romney uu isagu xagga shaqada wuxuu ku leeyahay iyo khibradihiisii waxaad moodaa in xaggaasi dacaayadii lagaga batay. laakiin hadii jeeral qorshiyeeshiisa waxaa ku jirta inuu kow dhimayo cashuuraha oo uu dhammaan waxa la yidhahda falaad tax uu sameynayo dadka hantida leh iyo dadka masaakiinta ah 20% uu dhimayo cashuurahooda. taas oo hadda aad moodo in caawa madaxweyne Obama uu si fiican u hirdiyay oo uu sheegay haddii arrintaasi ay dhacdo in markaasi aanu wadanku kari karaynin in maxaan ku idhahdaye dhaqaalihiisa u kabmo oo deficit la gelayo. laakiinse uu hadii jeer Romney ku doodo in haddii arrintaa la sameeyo ay abuurmi doonto shaqooyin, maadaama marka ay dadka lacagta leh ee shirkadaha madaxda ka ay helaan taxkii ama cashuuriin laga dhimo in shaqo abuurna dhacayso. laakiin waxaad moodaa in qolada kale kasoo jeeda dimuqraadiga iyo Obama arrintaas aad u ridiyaan. waxaa kaloo qorshayaasha ku jirta madaxweyne Romney in muddada 4 sano ee soo socota haddii la doorto inuu abuuri doono shaqo lagu qiyaasay 12 milyan, kaasi oo hadii jeeraalo ugu sheego qorshayaashiisa inay aasaas u tahay cashuurahaasi markaasi uu sheego iyo khibradahaasi uu la imanayo iyo dhinaca energy-ga amaba awoodda tamarta oo uu sheegay inuu had iyo jeeraale uu xooga saari doono in wadanka laga soo saaro shidaal
oo gobolada dhexe khaasatan oo lagu sheegay inay ku jiraan shidaal aad iyo aad u badan oo technology hadda la adeegsado waa tahay u dib yareynayo in lasoo saaro marka arrimahaas waxaad moodaa inay had iyo jeer la yidhaahdaan waxaan ku sameynaynaa shaqooyin badan laakiin se dhinaca kale aad bay u hirtiyaan aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin kuwaasna waxay ahaayeen cabdikariim cabdiraxmaan xaaji xasan oo isagu ka mid ah maamulka shabakadda wardheer news iyo xaashi shaafi oo isaguna ah madaxa ururka Somali Action Alliance oo ah urur isagu ka shaqeeya diiwaangelinta dadka ee xilliga doorashada lagu jiro oo jooga Minneapolis. Cabdikariimna waxa uu isaguna ku sugan yahay San Diego gobolka California. waxaa kale oo dooda iyaguna ku jiray oo nagala qayb galayay Ibrahim Aadan Maxamed Faransa oo ka tirsan idaacadda Jubba ee magaalada Muqdisho ku taala iyo waliba Yuusuf Axmed Abuukar Keenan oo isaguna ka tirsan idaacadda Kulmiye ee magaalada Muqdisho oo labadaas idaacadoodba ay yihiin kuwa bahwadaag la idaacaddan VOA Washington. waxayna dood u ahayd doodii dhex maraysay madaxweynaha dalkan Mareykanka Barack Obama iyo Mitt Romney ee dhacday habeenkii xalay. halkani waa Washington.